habeenkii xalay ahaa waxaa degmada Dongor iyo Aagada ka dhacay laba dhacdo waaweyn. dhacdada ugu horeysa wuxuu ahaa gaari dheena oo waday reer guuraa kuna wajahnaa dhankaas iyo bari ayaa wuxuu ku qadimay kantaroolka degmada Dongor. ilaahay cidna wax kuma gaarsiin xuli saarnaa iyo dadka saarnaaba. waxaa aroornimadii u gurmaday taliska degmada oo hogaaminayo taliya Dabaleeg iyo shacabka degmada. waxaana lagu guuleystay gaarigaas in la toosiyo. arrinkaas abaabulkiisa iyo ka shaqayntiisana waxaa ku ammaanan taliska degmada oo si weyn uga qayb qaatay. sidoo kale waxaa xalay dhacay bajaaj la soo dhacay in lagu qabtay degmada Dongor. bajaajtaasna ay gacanta ku hayaanin taliska ciidanka ciidii lahaydna markii hore ay xogta u soo gudbisay degmada laguna wargeliyay inay qabtaan baashaas. ilaahay alxamdulillah gacanta lagu hayaa. aad baynu mahadsanyihiin ciidanka.